caruurta gaiga baan adduunku ha sootayaan adduunku ha sootayaan marka walaal waan ooyayaa waan mulaadilaacayaa waxa weeyaan xaaladan inaan soo celceliyaan habeen walba iyo maalin walba qof baa la aasayaa marka waa ayaan daro xaalad nooceeya ayay ku jiraan dadka darbijiifka ee ku nool gudaha Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa iyadoo xukuumadda Soomaaliland ay dhawaan sheegtay in roobo waaweyn ay ku soo socdaan gudaha Soomaaliland haddaba bal arrintaasi waxaan ka wareysan doonaa Mandela oo ah afayeenka dadka darbijiifta Mandela oo ku soo dhaweynaya MMTV bal xaalad nooceeya xilligan dadka darbijiifka ku nool yihiin xaaladda maanta darbijiifta ay ku sugan yihiin magaalada Hargeysa ayay ku daadsan suuqyada iyo meelaha duxyada cid u gurmatana waa la waayay wasaaradii shaqagelintii arrimaha bulshadana adigu ilaa dhowr wasiir baa iska soo badbedelay hadda waxa haya wasiir Cali Xorxor baa haya oo wasaaradda imika jooga xiriir saasana ma wala lihin wallahi dadkaasi imika saameyn adag ayay hadda ku leedahay dhaxamihii oo kale xooggaanu saarnay ciidii oo kale xooggaanu saarnay hadda roobabaa lagu jiraa xaalad adag weeyaan waay waxa jira dad hoos seexda dhulka ama halka biyuhu maraan oo kale dadka bal sidii u saameyn kara roob horta dooxa Soomaaliland magaalada Hargeysa biriishka iyo qaybta xigta hotelka imika xiran kaynta ay ka baxeen garanwaayadu ay hoos seexdaan marka waxa weeyaan dadkuna dooxuna aad buu u balaaran yahay marka meel ay ka soo talaabaan ma hayaan hadduu dadku intaa ka sii bato waxa laga yaabaa inay qaadaanba waa ay la tagaan marka waxa weeyaan cid soo badbaadinaysa oo ama ciidanka ama qaranka oo kale badbaadinaysa ma jirto oo ogdi wasaaradii loo igmadayna way iska ilowdi imika hintii roobabku da'ayeen wax caqabado la kulmay ma jirtaa wallahi niyow caqabado way jiraanoo mar way gaajoonayaan oo way duruufaysan yihiin mar waqti kala duwan bay ku jiraanoo muur bay ku jiraanoo way daroogay cabayaan oo waxa weeyaan daroogadan inanta waxa weeyaan saameyn adag bay imika ku yeelatay dhulka Soomaaliyeed oo dhan ma fahantay oo wadigii arkayay imika maalintii dhaweeyay gudoomiyaha banaadir ee gobolka caasimadda Soomaaliya inamada daraagiska cabayay uu bakoorada la dhacay Hargeysana waad arkaysaayo daroogadii ayaa aad uga soo badatay inamada yaryaraana aad bay daroogada isbeerlayaasha aad uga iibiya waxa weeyaan iyaga shaqadoodii bay tahay laakiinse ma oran karaan mad cabaysaa ma kabaad marinaysaa la xisaabtan adag kuma sameynayaan marka lacagtii bay ka qaadayaan dadana ilmihiina daraagiska buu cabayaa marka lacagta ka keenaya lacagta wuxuu ka keenayaa baalash buu shaqaysanayaa ama biraha duxyada ayuu soo guranaya markuu roobku da'o ayaa bira laga helaa meesha biraha markuu rusado soo miisaamo ayuu wixii yara lacagta hay'adu ku soo helay ayuu ku iibsanaya xabagta marka daraagiska isticmaalaan imka Hargeysa maxay kala yihiin daraagiska waxa weeyaan horta ay isticmaalayaan imika xaaladan home childrenku waa xabag u khaasan wax kale ma jiraan oo kuwa dhex waaweyn soo galaa way jiraan laakiinse dhinac bay uga baxaan oo gees bay uga baxaan kuwaasi laakiinse iyaga dhexdoodu xabag bay cabayaan marka caqabadaha roobku markuu da'o ama intii roobku da'ayay aad aragteedu maxaa kamid ah wallahi niyow horta caruur la soo badbaadinayay bari dhaweyd waan arkay sanadkii ka horeeyay oo dandamisku soo badbaadinayay oo home childrenka kamid ahaa laakiinse imika marka roobabkan oo kale xaaladdu ay saa u adag tahay qayb weyn inay dowladda hoose ka qaadataa fiican oo weliba maayirku ka qaato waayo maayirka iyo Mustafa Godane markuu wasaaradda haystay xiriir bay wala lahaayeen iyo wala shaqayn dhinacan ina mooge ee home childrenka ee xarunta darbijiifta iyo wasaaraddu oo wala shaqayn bay lahaayeen hadda intii la bedelay Mustafa Godane ayaa wala shaqayntii ay go'day ka bacdina hawshiisii kala bilaabay maayirku walaal waxaan ku darayaa ummadda islaamka iyo Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi dadka naxariisanaya waxaan leeyahay iyo xukuumadda gaar ahaan iyo mar walba horta waan ku soo celiyaa walaal sheekadana waxa weeyaan in badan bay dadku dhageysan karaan cilmiga iyo aqoonta iyo garashada
ilaahayna dadka si kama wala dhigin bil'aamigan ilaahay baa abuurtay adduunkanna horta qof walba waa ka tegayaa nin waarayaana ma jiro walaalkaygiyo de maadaama sheekadan iyo homeless childrenkan iyo xuquuqdoodii aan u hadlayo horta inay dadku i dhegaystaan ba habboon waxaa habboon inay madaxdu i dhegaysato inay golaha baarlamanku i dhegaystaan inaa la xishmeeyo la soo dhaweeyo inaa aniga horta eryadii iyo fikirkii iyo waayo aragnimadii baan hayaa de aniga la ilaahdo Xuseenow de bal dadkan seen wax uga qabanaa dabeetana aan anigu soo dajiyo barnaamijkii oo horeba hindegaani baan kala hadlay oo Mustafa Godanaan kala hadlay oo ala xirxir ma hayo imika marka wallahi ayaan daradeeda walaal leedahay ilaahay waxaan leenahay dhalinyarada homeless childrenka Allah soo hanuuniyo madaxda Soomaaliland oo dhanna Allah soo hanuuniyaan leeyahay waxaan ahay masaakiino maan helina maaniyo wehelaygu aamino aadmiga naftaydo aariyada baldooxo waxaan galaa aruuraha aqalkan ku leeyahay agabkaygu waa ciid afirka ubadkeyga hallo gurmado afirka afarteeda dhinac waxaa ka baxayo olol ku shiday ehelkee ku xigay intay isku duubni keento ubadka derbitiifka abaabul haloo sameeyo adduunka nafbay ku leeyihiine warxama derbiga aqal bay kuleeyine warxama ogaada amaanadooda warxama caruurta gaiga baan adduunku ha soo dayaan marka walaal waan ooyaya waan mulaadilaacayaa waxa weeyaan xaaladan inaan soo celceliyana horta ma habboona qof walboo damiir leh oo madaxa inuu ilaahay garto ayaa horta walaal habboon والنبي صلى الله عليه وسلم نحريس كركي ساعتي وقرطو وقرآن كينا كريم كألا سودتي وقرطو يا حديثة كهالليسا دباتوين كأغونتا يا رجال يهوم مستلترنكا إني هوسو إيغان كتاب هذا وإلهي أي قرطان أيا ولا الهبون دمير كاسي وحاول نقول لها مرحدي مرول بأن سوء علي شيء كذني وحاول نقول لها قلب يدو ذا عضق حسابي نوي دنبيسا إلهي سبحانه وتعالى قفل بنا والله maalin walba qof baa dhimanaya habeen walba iyo maalin walba qof baa la aasaya marka waa ayaan daro oo waa nasiib daro waxaan leeyahay homeless childrenka hadii la ilaaway adduun iyo aakhiraba ilaahay waa naga xisaabtamaya waliba khaasatan miisaaniyada qaranka ee darbatiifta uga soo go'da ee homeless childrenka waxa weeyaan meel la geeyo iyo meel lagu talagalay midna lama hayo marka walaal ilaahay waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayaa u maqan dadka afka Soomaaliga ku hadlo dhan baa u maqan waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala toobada Allah inuu waafajiyo adigana si gaar ah walaalku salaamiya way waxaad xaqaaga dambe ka xustay inaanay jirin miisaaniyadu meel ay ku baxdo maana jirin meelaha xarumaha ay hayso wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay ka mid tahay xarunta lagu agoomaha kale iyo xarunta ku taala maxamed mooge kuwaas ma arag may walaal xarunta eeg dhalinta kacaanka warka ma hayo laakiin satan miisaaniyada homeless childrenka wax darbitiif oo imika ku jirta ma jiro darbitiif wax la yiraahdo oo ku jira ma jiraan waxa weeyaan suuqyadii bay ku daadsiin meesha barakacayaal baa jooga marka ma laga soo saaray lada waa laga soo saaray barigii lul xasan mataan inta oo faadmas cid meesha ku wareejisay ayaa laga soo saaray maanta wax darbitiif oo meesha jooga ma jiro waxa jooga inama yararo barakacayaala oo hooyooyin leh oo aabayaal leh oo meesha dibaxanaanayn lagu dhaqo oo la yiraahdo waa qalqaaliyin ما فهمتي لكن سو واحد دربتي فوق أجون رتشي ظروفتي وأيوه قبين والله إنه نشوف بالله وادي يقدريه وياهي داوديال كاسي وحوها حسين منديلا وها فيان كدربتشيفتا وأنا كوريسين إني حالات دا يكون سويين حلق رابطية ضد كدربتشيف كهي كورة عنابي MMTV